warhoy toobada lagu hela guul haysado hayo iyo ka kacdiileed hayla qubisiye qof kasto hadlaba tiinu way ugu horeysaa qof kasto hadlaba tiinu way ugu horeysaa iminka la wada hiifaya hanadadiiniye wata haweenkii cidlada kaga hagaagteene waati abaad lagu haliyay hilimadiiniye tagi kumanka handaamin jiray neefafo haraye wasla hadlaya adilihii kibirka hoolaay waftigii xukuumadda Soomaaliland ee bilihii ugu dambeeyay nabadaynta u joogay magaalada Celaf Weyn ay wehelayaan saraakiisha ciidamada qaranka iyo booliiska Soomaaliland madax dhaqameed ka soo kala jeeda labada beelood ee deegaanadan wada dega waxgarad iyo culimo kale ayaa safar dheer maalintii labaad ku sameeyay deegaano kale oo degmada Celaf Weyn iyo degmada Garada ka tirsan kuwaas oo dadka walaalaha ay dhibaatadu kala gaadhay balse go'aamada hadda laga soo saaray wada degaan tulooyinka waftigu gaadheen waxa kamid ahaa Siigadheer Sincaro Fadhigaab iyo deegaano kale oo badan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Professor Xasan Maxamed Cali Gaafadhi saraakiil iyo mas'uuliyiin tiro badan ayaa iyagu fagaarayaasha dadka isugu soo baxay deegaanadaasi kala hadlay qiimaha nabadda halka aynu deganahay waxa waxyaalo lagu kala riixdaa ma muuqdaan waxaan wax nolol oo la yiraahdo aan ku kala riixano oo kanina joogo kaasuna ka maqnaado kana ha ka baxo kan yuu soo hoyan kanaale kana ka riixno oo halka yaala ma jiro nabadda la qaatay maanta meel looga leexdaana ma jirto wax dhaamo oo jiraayo ay ognahay ma jiraan waana la asiibayo maragad awradii culimadii ay xukuntay kitaabka lagu sareeyay oo lagu sargooyay meel looga leexdaa ma jirto wax lagu doorsadaana ma jirto qofkii diidaana waa qof Ilaahay diiday qofkii taa diida waa qof Ilaahay diiday waxaanu leenahay wixii dhintayna Allah u naxariisto intaana noolna maxaan ku raahdaa Ilaahay hayna ka badbaadiyo shar dambe hayna ka badbaadiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ugu helantiin nabadda halka waxa isku timi Soomaaliland oo dhan wadaadadii waddanka oo dhan baa yimi go'aamay soo saareen go'aamadaas waxaanu aad ugu rajaynaynaa inuu wada sheegay dadka sidoo loo qaato awaamirta xukuumadda ka dambeysay kullu wadi soo gaadhay cidii ka hortimaada tallaabooyinkaas laga qaadayaa waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in si niyada u qaadataan oo wax xumaan heba ka iman ilaahay saddex gashaan garnaqi iyo gabagabadii go'aankan ninkii saylax ka yimi iyo kii sanaag bari ka yimi iyo kii sool ka yimi maanta labay mid noqonaysaa in dadkaasi reer Soomaaliland aan la nooshihiin la dhaqantiina ka tirsan tihiin ay karaama darro idinku soo eegaan oo inkaartoodu idinku dhacdo iyo inaad go'aankii qaadataanoo sheekh iyo shariif baa idiin soo duceeyaan ما إنكارت الله قادر يا مسد على الله قادر يا إن شاء الله إلهينا وينوهر قلنا يا إن شاء الله إلهينا ذكي نويمي وأنا دي وعد دي الدعاء دي ما وينو قادرنا هنا أرادنا يمتكم الله مديه بقى إنا يسابطه بمشبنا عادمي يا بركة يدك أو إنك دمبي قا يسجل لبوك كوبية قانا والله قصو صار وحلي إنك دمبي قا يسجل كوجاري هاي خيره ومقاض إذا كان الله راعي ماي وحنا هذه هذوك بابين هي تدوينها الديجان ككلي إنه ورالتني ماذي السهيلة وجلي يسوي ولا قيب سجي إن هذه عوشة لوجا وذا شقيو salaadiinta waxgaradka boqorada culimada cuqaasha iyo waayelka kale safarka xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiinta wasiirada ku weelinayay ayaa iyaguna ka deegaan ahaan geestooda sheegay in colaadani dhamaatay nabadda in la xijistana kula dardaarmay dadka deegaankaasi Fadhigaab xukunkii la idin sheegay ee la qaatay waxa kamid ahaa ee shariicada lagu xukumay in magta la kala qaato oo waliil damka la siiyo in dalka aan la kala sheegan oo qof waliba meeshuu dego waxa kamid ahaa in wanaag lagu wada noolaado oo xukunka sharciga la raaco waxa oo dhan aynu qaadanay soo gaarsiinay oo aynu qaadanay waa wixii ugu wanaagsanaa ee bilaadanku qaadan jiray xukunka dhacay ee nabadeed wuxuu ku leeyahay laba shay kala dooro cadaab aakhiro iyo janno waxay macnaheedu kii wax dilay cadaabtu tagaya shuusha u bax شرو قور
شور روبح شرو قور xumaanta iyo dagaalka iyo dhibka iyo qoxu wuxuu yahay waynu baranay haddii la xisaabtamo cidda dagaalka ay waday la eegana 300 oo inan ma dhamaynta dagaalantay laakiin waa habar lama beestishay weeye dulinimada waxa ugu weyn marka la isku dilo wadaadkii masaajidka ka adimayay ee imaamkii labadaba ka baxa la yiraahdo oo meeshii nuurkii iyo diintii laga waayo waxa weeyaan meeshii waa ka saaraysaa dulinimada way ka muuqanaysaa odayaashii gurguuranayay labadooda qolo horta waa nala ka saaray laakiin waxaan ku fiicannahay waxaanu leenahay labadooda qoloba meel leeda koobariiso dhufays bay leedahay oo dhir dhow koobariisle haddaanu tagnaa idinku koobariisna meel gawaankaa diiran baa joogtaan meelaa kusoo dhufaystaan odayaasha socon waayana qadada lagu keeno horta ma lihidin war nabadgelyada ilaashada baanu ku ognahay waxaanu wasiirada ugu bushaaradaynaa inay nabadii way soo xidhantay oo aad u xidhantay oo adkaatay oo riirsatay oo aad iyo aad u riirsatay baan ugu bushaaraynaa colaadda idin aafaysay magaalooyinku waxay ku camirmaan dadkeena fikir khalada ka dhaadhacsan magaalada reer hebel baa leh oo reer hebel keliya inay yeelato oo ay in yar isugu hadho iyo in ummaddu wada yeelato ay horumar samayso keebaa marka la wada yeesho waxtar bay helaysaa iskuuladii bay helaysaa secondary bay yeelan kartaa war idinkoo isku qoys oo 4 gabigeenu baynu 4 qof nahay inay sarki weydaan wada degi weydaan oo masaajid wada gelaya oo wada inay hebelaa meel nasiib darro ahayn maxamuud cabdi barre warbaahinta caalamiga bulsha TV